dib loo hurayaa oon la damihaynin waadaya warwar mahaysaanad guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gedo wuxuu yidhi ikraan hooyadeed carrabka ha laga gooyo rooblana uma naqaanno inuu ra'iisul wasaare yahay mana aqoonsanin marka waxaan la yaabanahay guddoomiye degmo oo sidaa u hadlaya cidda xilka u dhiibtay warwar ma haysaana ninka sidaa u hadlay warkiisa waxaa ka bari gooyey madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waa la daba joogaa ya erey madaxweyne farmaajo nimankaa nabad sugiddaha xolalka ugu dhiibtay ee iska hadlaya warkooda yaa naloo qaban raallina ha laga ahaado war xildhibaan daliis xasan aadan oo degmada luuq ka soo jeeda waxay tidhi raaligelinaan ka bixinaynaa warkaas hanu qalmin lagaha ummadda soomaaliyeed war cabdiweli garyare iyo kooshin gareen garawshay ka baxsheen warka guddoomiyaha luuqa miyaadnaan garanaynin war guddoomiyaha degmada luuq oo ah sarkaal nabad sugida intuu xilka sii hayo raaligelintaasi ma dhammaystirna war kalemaanay dhaliishaad aragtaan oo wanaagga ma dhugataane shirkadda hormuud dhibkii oksijiin la'aantu ku haystay ummadda way uga gargaartay waxayna keentay warshad soo saarta oksijiinka waxaana laga dhex dhisay warshaddaas isbitaalka banaadir waxaana